Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa warqadaha aqoonsiga danjirnimo ka gudoomay safiirka cusub ee dowladda Itoobiya ee u soo magacaabatay Soomaaliya Mukhtaar Maxamed Waare. Danjiraha cusub oo madaxweynaha Jamhuuriyadda la wadaagay dhambaal iyo salaan uga timid madaxweynaha dalka Itoobiya ayaa uga mahadceliyay soo dhaweynta diiran ee uu kala kulmay dowladda Soomaaliya. Safiirka cusub ee dowladda Itoobiya ee u soo magacaabatay Soomaaliya Mukhtaar Maxamed Waare ayaa madaxweynaha u soo bandhigay dadaalka uu ku bixin doono xoojinta xiriirka iyo wax wada qaybsiga ku qotoma danaha qaran ee labada wadan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu hambalyeeyay Danjire Mukhtaar Maxamed Waare xilka safiirnimo isaga oo la wadaagay in dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku garab istaagayso gudashada waajibka diblomaasiyadeed ee loo igmaday. Degmada Baardheere ee gobolka Gado waxaa ka dhacay qarax ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaari lagu soo raray walxaha qarxa sida ay Juba Media u xaqiijiyeen ilo kala duwan oo dhacdadan uga xog waramay. Ugu yaraan 2 ruux ayaa geeriyootay halka ay dhaawacmeen 3 kale oo ku jiro gudoomiyaha gobolka Gado Axmed Buule Gareed. Xilliga uu qaraxa dhacay waxaa xarunta ka socday shir gaar ah oo mas'uuliyiinta waxyeelada soo gaartay iyo kuwa ka badbaaday uga arisanayeen howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab oo ay damacsanaayeen in ay ka fuliyaan deegaanada hoostaga degmada Baardheere. Ilo kala duwan ayaa Juba Media u sheegay in degmada Baardheere saacadihii u dambeeyay la isugu geeyay ciidamo loo diyaariyay in ay ku dhaqaaqaan howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab oo ay hormuud u yihiin xildhibaano iyo senataro heer federaal. Ilaa haatan ma jiro mas'uul ka tirsan maamulka gobolka Gado oo warbaahinta siiyay macluumaad dhammaystiran oo sheegaya khasaaraha inta uu gaarsiisan yahay iyo sida uu u dhacay weerarkaasi, maadaama amniga Baardheere muddooyinkii u dambeeyay ay adkeeyeen ciidamada ammaanka.